munaasabad si meeqaam sare loo soo agaasimay isla markaana ka qabsantay geedka nabadda ee degmada Garadag ayaa ahayd mid lagu soo dhaweynayay barasaabka cusub ee gobolka Sanaag loo magacaabay Axmed Cabdi Muuse. Munaasabadan oo ay kasoo qayb galeen uqaashi waayeelka waxgaradka haldoorka qorweynta iyo maamulka heer degmada Garadag isla markaana ay u kala hadhin dhammaanba bulshada ku dhaqan degmada Garadag ayaa waxay sheegeen inuu yahay barasaabka cusub aqoon-yahan howlkara isla markaana hanan kara kana soo bixi kara xilka uu magacaabay madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland mudane Muuse Biixi Cabdi. waxaan joognaa goobkii Garadag waxaana reer Garadag waxaan ka maqnayn maayarkii magaalada iyo golihii deegaanka uqaashii shacabkii reer Garadag oo dhan baan nahay waxaanu si mug iyo miisaan u soo dhaweynaynaa barasaabka cusub Axmed Cabdi Muuse ee loo magacaabay gobolka Sanaag. Axmed Cabdi Muuse waa nin aan naqaano waa nin halkaa loo magacaabay ka adag waa dhalinyaro waa nin waxaan halkan isugu nimid gobolka kan soo dhaweynayno barasaabka cusub ee loo soo magacaabay gobolka Sanaag. waxaan leenahay madaxweyne waa asiibtay inaan nin dhalinyaro oo gobol aad u ballaaran oo gaarigu dhowr maalmood ku wareegayo mid xamili kara caqli ahaan iyo jir ahaanba waaye Axmed barasaabka cusub ee gobolka Sanaag uu soo magacaabay madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland Muuse Biixi Cabdi. barasaabkaas oo ah Axmed Cabdi Istabar oo dhalinyaro ah aqoon-yahana aad iyo aad u firfircoon qaba anigu inuu yahay nin ka soo bixi kara hawsha loo eegmaday gobolka Sanaag la yiraahdo gobol soo dhaweynay ka dambeyn tii ugu muhiim miisaan badnayd baanu soo dhaweynaynaa barasaabka cusub Axmed Cabdi Muuse baanu soo dhaweynaynaa waxaan leenahay soo dhawow halka Allah ku fududeeyo madaxweynaha iyo doorashadiisana si fiican buu arrinka uga ilsugtay waan ku soo dhaweynaynaa barasaab hawsha lagu egmadana Allah ku fududeeyo si fiican ilaahay ha kula garab galo. barasaabka cusub ee gobolka Sanaag waxaan halkan salaan uga diraynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland Muuse Biixi Cabdi asbaabta uu ku doortay Axmed Cabdi Muuse barasaabka cusub ee gobolka Sanaag aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa madaxweynaha. barasaabkana waxaanu leenahay ilaahay ha kugu asturo xilka isaga caadilaha Allah ha ku fudud. waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay xilka loo magacaabay Axmed Cabdi Muuse Istabar aan idhaahdee waa nin aanu ku kalsoonahay waa nin aan la shaqaynayno waa nin ku filan xilka aad u idbatay waa nin yacni yaqaan aqoonna u leh reer ceeri gaabo u dhashay ka shaqeeyay ku filan waa nin firfircoon waa nin aanu ku rajo weynahay inuu ka soo bixi karo waxaanu leenahay madaxweynaha qaranka arrintaa waa tugatay adigana waa kugu hambalyeynayna waxaan leenahay adigana waa kuu ducaynaynaa Allah ku fududeeyo hawsha waa ku soo dhaweyn. marka hore ilaahay dawladdeena ha taam yeelo ilaahay rabbiga cadowgeena ha jabiyo meel kasta bayna ka soo eegaya madaxweynaha waxaan ku hambalyeynaa Cabdi Muuse wayna wanaagsan hadaan wanaagsanin xilkaba looma direen hadaan nin adag hayna looma direen hadaan ka adkayna looma direen inaad rood ku mahadsan tahay waa ku soo ducaynaynaa. Biixi Cabdi aad iyo aad baan uga mahadcelinaynaa magacaabista uu magacaabay Axmed Cabdi Muuse Axmed Istabar gudoomiyaha gobolka Sanaag aad baan madaxweynaha kaga mahadcelinaynaa. Axmedna waxaanu leenahay ku soo dhaw gobolkaagii dalkaagii iyo dadkaagii weeye waanuna kula shaqeyn magacaabida uu magacaabay Axmed Cabdi Muuse oo ah nin matali kara gobolka iyo deegaanka iyo dalkaba oo aanu sugayno ah aqoon-yahankii deegaanka u dhashay madaxweynaha intaa waa uga mahadcelinaynaa waxaanu kala hambalyo u diraynaa Axmed Cabdi Muuse oo loo magacaabay xilka Axmed waxaan leenahay ku soo dhawow dalkaagii iyo gobolkaagii iyo deegaankaagii waanu ku anagoo maanta ku sugan goobkii Garadag ee degmada Garadag Axmed Cabdi Muuse oo runtii ah in dhalinyaro oo xilka loo magacaabay ee barasaabka gobolka Sanaag runtii ah nin ka soo bixi kara ku habboon oo aanu isleenahay wax badan buu ka bedeli doonaa insha Allah wax badan buu ka bedeli doonaa waanu kula shaqayn doonaa si mugle iyo miisaan leh baanu kula shaqayn doonaa si dhalinyaranimo ku jirtaan kula madaxsare warbaahinta qaranka jamhuuriyadda Somaliland.